Claire Fox oo ah qoraal u dhalatay waddanka Ingiriiska ayaa sheegtay in maalin maalmaha ka mid ah iyadoo xafiiskeeda joogto in gabadheeda ay xafiiska ugu soo gashay iyadoo ooynaysa oo murugi ay ka muuqato. Markaasay u wacday wayna la fadhiisatay. Waxay weydiisay waxa ku dhacay ee ku keenay inay sidaas u murugta una oyso. Balse waxay ogaatay in gabadheeda wax sidaas u weyni aysan ku dhicin, keliya asxaabteeda ay isku fasalka yihiin inay dalxiis aadeen iyadoon wargelinin. Xalqadeena maanta waxaan uga hadlaynaa jiilka jilicsan ee soo dhawaada. Greg Lukianoff iyo Jonathan Haidt oo qoray buugga Hoos u dhigista caqliga Mareykanka ayaa ka hadlay sababta keentay jilicsanaanta jiilka maanta. Waxayna sheegeen in jiilka maanta ay adeegsanayaan xeelad walbo ay ku boonboonin karaan dhibaato walbo soo wajahda noloshooda, taasoo ka dhigan in culays walbo noloshooda soo wajahdo ay tahay mid aan waxba laga qaban karin, ugu dambeynna ka dhigaysa kuwo isdhiiba oo niyad jaba. Xeeladan waxay salka ku haysaa xaaladda nafsiyadeed ee jiilka maanta, taasoo ay wadaagaan, waxaana loo yaqaanaa jiilka jilicsan. Jiilashii hore, qaangaarnimadu waxay u dhaxaysay 14 sano ilaa 20 sano, balse maanta waxaa aad u badan dhalinyaro da'doodu gaartay 25 sano oo weli dareen ahaan iyo nafsi ahaanba ay caruurnimo ku jirto marka loo eego qaabka ay dadku la dhaqmaan iyo fahamka guud ee nolosha. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee macquul ku noqotay arday ka qalin jabiyay jaamacadda ee aan faham weyn ka haysanin nolosha iyo mas'uuliyadaha sugaya? Si su'aashaas looga jawaabo, culimadu waxay sheegeen in jiilka maanta aysan ogolayn ama diyaarba u ahayn inay weynaadaan, taasoo dhanka kalena ay jecel yihiin inay sii dheeraystaan waqtiga ama da'da caruurnimada ilaa intay u gaarto, taasoo ugu dambeynna loogu yeero Peter Pan syndrome. Taasna waxaa kaloo kasii dhashay su'aal kale oo ah koolkoolinta, daryeelka iyo u fududeynta wax walba oo carruurta loo sameynayo ma ka dhigaysaa inay noqdaan dad waxgal ah, waxna tara, waxna qabta, amase waxay ka dhigaysaa dad daciif ah ee aan waxba qabsan karin? Si su'aashaas looga jawaabo, waxaan u baahannahay inaan dhiraandhirino ama aan fiirino qaabka barbaarineed ee qoyska. Si su'aashaas idinkaga jawaabo, waxaan idiin soo qaadanayaa tusaale ku saabsan waddanka Mareykanka. Daraasooyin laga sameeyay sagaashamaadkii ayaa waddanka Mareykanka carruurta waxaa aad ugu batay xanuunka xasaasiyadda ee ay ka qabaan lowska. Heerka xasaasiyadda carruurta ee Mareykanka sagaashamaadkii waxaa lagu qiyaasay boqolkiiba 0.4 ayay ahayd. Muddo kadib oo dib loo daraasay ama loo baaray, waxaa la ogaaday, weliba gaar ahaan sanadka markuu ahaa 2008, waxaa la ogaaday inay tiradii korortay ay noqotay 1.4 boqolkiiba. Si kororkaas ee Mareykanka ku yimid xasaasiyadda dhankeeda loo ogaado, waxaa daraasooyin lagu sameeyay 460 carruur ayaa daraasooyin lagu sameeyay. waxaana loo kala qaybiyay 2 qaybood. qaybna waxay ahaayeen kuwo reerahooda mar walba siiya lowska aan laga reebin, halka kuwa kalena gabi ahaanba laga reebay oo aysan cunin, si loo kala ogaado saameynta ay ku kala leedahay iyo cidda ugu badan ee xasaasiyad ku dhici karto. Carruurta daraasaddaas lagu sameynayay da'dooduna waxay ka yareed 1 sano. Daraasaddu waxay socotay 5 sano. Markii daraasadda la soo gabagabeeyey ayaa la soo saaray sida tan. Midda koowaad, carruurtii laga ilaaliyay lowska ayaa waxa ay korortay heerkooda xasaasiyadda lowska waxay gaartay 17%, halka ilmihii loo oggolaaday inay lowska cunaan ama aan laga ilaalinin ay noqotay 3%. taasi oo fajac la yaab ku noqotay dadka daraasaddooda, sababtoo ah waxaa loo haystay in carruurta marka laga ilaaliyo lowska ay ka fiicnaan doonaan xaaladdoodii hore, balse ma dhicin. Dr. Wilson oo arrinkaas sharaxaad ka bixinaya ayaa yidhi, dardaaranka sheegaya in carruurta laga ilaaliyo wax walba oo xasaasiyad ku keenaya si caafimaadkooda loo ilaaliyo wuxuu ahaa dardaaran khaldan. Aragti kale ee midaas ka duwan ayuu sheegay, taas oo ah in wax walba oo jirka lagu dhigo ee uu la qabsado in muddo ah lagu wado uu noqonayo mid la qabsanayo, bal uu kaga fiicnaanayo qofka aan weligiisa tijaabinin. Waxaana taa la mid ah dhibaatooyinka, caqabadaha nololeed iyo tijaabooyinka nolosha ee la maro, taasoo qofka ka dhigaysa iyadoo la ogyahay inay dhibaato ay culays ku hayso, laakiin ugu dambeyn u noqonaysa inuu noqdo qof adag, la qabsada,
sidoo kalena ka gudba mashaakilaad iyo dhibaatooyin kale mustaqbalka soo wajihi kara. Waxaa jirto aragti sheegaysa in bani'aadamka mar walba wax loo fududaydiyo, wax walba oo u baahnaa loo diyaariyo, mid dadaalkiisa, juhdigiisa iyo dadaalada uu bixinayo uu ka gaabiyo. Sidaas darteeda waxay u baahan yihiin in culeysyo badan la saaro si ay u shaqeeyaan. Sababtana waxaa waaye qofka bani'aadamka mar walba nolosha uu pressure dareemayo, culeys iyo caqabado badan uu dareemayo, uu noqonayo mid leh noloshiisa hadaf, macno iyo isbedel. laakiin mar walba qofku uu dareemayo inuu nasanayo, inuusan wax badan laga rabin, inuu mas'uuliyadiisa yar tahay, wax walba loo fududeeyay, wuxuu noqonayaa qof wax soo saarkiisa maskaxeed, mid jirka iyo midka kale oo maskaxeedba ay yaraanayso. waxaanu ku soo qatimaynaa oraahda Dr. Nassim Taleb ee uu leeyahay sida jirka markii dhaqaaqa laga ilaaliyo uu qofka muddo bil ah uu saarno sariir in muddo ah ay saameyn ugu yeelanayso lafihiisa, jirkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo caafimaadkiisaba. sidoo kale marka qofka insaanka ama bani'aadamka uusan culays saarin oo adeegsanin maskaxdiisa iyo jirkiisaba, wuxuu u noqonayaa fadhiid, wuxuu sidoo kale noqonayaa mid aan wax soo saar lahayn, macnaha iyo mas'uuliyadda nololeed ee looga baahnaana noqonaya mid sidii la rabay isan ka soo bixin. sidaas iyo si la mid ahna maskaxda iyo naftuba u noqonaysaa mid dhimanaysa ama aan waxtar lahayn, mise wax soo saarkeedu hoos u dhacayo haddii laga ilaaliyo in laga shaqaysiiyo ama culays la saaro. tanina waa midda horumarka dunida maanta uu la yimid iyo daryeelka aadka u weyn ay waalidiintu u sameynayaan ubadkooda. kuwa raba inayna garab istaagaan, na caawiyaan, wax weynna noo taraan, ayaa isla ayagana waxay qayb ka qaadanayaan dhibaatada mustaqbalka ee maanta aan la kulmayno. taasina waa araahda dhalinyarada ka turjumaysa xaaladooda. bal arrinkan aan ka hadlay aragtidaada ka dhiibo, waxaan ka tagayna ku dar. waxaan idin rajaynayaa is arag dambo oo xiiso leh.